dunidan aynu ku noolnahay qof kasta waxa uu u baahan yahay haddii uu dhibaato dhanka dhiigga uu la kulmo in lagu shubo dhiig degdeg ah. Haddaba maanta TV ayaa isbuucan booqasho ku tagay xarunta adeega dhiigga ee Banaadir. halkani waa xarunta Banaadir Blood Service, waa xarun lagu keydiyo dhiigga. Waxaa aasaasay oo dhidibada u taagay koox dhalinyaro ah oo si iskooda isku xilqaamay. Waxay si mutadawacnimo ugu adeegaan bulshada u baahan gargaar dhiigeed. Waxay sameeyaan xarun lagu keydiyo dhiigga si haddii loo baahdo dhiig degdeg ah ay u caawiyaan. Aasaaska xarunta Banaadir Blood Service ayaa ku soo aadeysa iyadoo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho aysan lahayn bangi dhiig lagu keydiyo. Muqdisho oo ah xarun martigelisay masiibooyin ay dad badan ku dhaawacmaan ayaa u baahan bangi dhiig lagu keydiyo si loo caawiyo dadka dhaawacmay ee dhiig bax soo wajaho haddii ay u baahdaan. Waxaa xarunta Banaadir Blood Service maalin walba imaada dhalinyaro doonaysa inay dhiig bixiyaan. Aways Haashim Maxamed waa dhiig bixiye waxaan kula kulmay xarunta adeega dhiigga ee Banaadir si uu dhiiggiisa u sadaqeeyo. Safar dheer ayuu u soo galay. Wuxuu iigu waramay waxa ku kalifay dhiig bixinta asigoo dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda jooga Muqdisho kula dardaarmay inay dhiigga bixiyaan si looga gaashaanto in dhiig bax uu qof u dhinto. ما شاء الله سؤال وقيمة بدنا يا ويديسي horta marka ugu horeysa waxa khaali ah qofka inuu ku jiro dareen bini'aadanimo ah ku saleysan Soomaalinimo ku dheehan walaaltinimo ku dhameystiran diin intaas markii la helo waa ogtaa wadanka aniga aan maanta aan joogno waxaa ka jirta dhibaatooyin oo xagga maxay raahdaa baahida caafimaadka gaar ahaan dhiigga. marka sidaas darteed si aniga aan dadka walaalaheena oo maxay raahdaa wax soo gaara si aan ugu tabarucno dhiigga ayaa maanta u imaaday xafiiskan quruxda badan ee ay dhalinyarada isoo xilqaantay in ay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan u istaagay ayaan maanta yimid. waan arkaysaan in aan maanta aan dhiigga bixinayo taasi oo ay ka micno tahay dadaalka ay qabteen dadka meesha furay oo annagan aan ku raacnay. waxaa la rabaa marka dadkeena Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada sidaan si lamid ah iyagan in ay u yimaadaan oo walaalahood ay caawiyaan. wax la baxsado waxa ugu qiimo badan dhiigga maxaa yeelay wax badbaadinaysa meesha ay dadka wax ka dilayaan. marka si fiican horta baahi dhiigeed inay jirto way iska cadahay. maxaa yeelay inta badan anugu hadda dalkeenu waa dal dib u dhacay oo ma qabni meel hadda oo lagu aado yani bangi dhiig ma qabni. marka si baahidaas loo dabool anigana aan meesha u yimid oo baahidaas ay dadweynaha ay maxay raahdaa ay noqoto mid ay ayaga ay isugu caawiyaan maadaama aysan dawladda ay intaas wiil ay noo sii gaaran oo aan ka rajaynayn intaas in ka badan in ay qabtaan waxa aan qabanayno. Dr. Axmed Cabduqaadir Maxamed laa mushkila waa gudoomiyaha xarunta dhiig bixinta ee Banaadir. waxa uu hormuud u ahaa dhalinyarada dhidibada u taagay xarunta adeega dhiigga ee Banaadir. wuxuu iiga waramay waxa ku kalifay asaaska xarunta iyo cidda ka gacan siisay hirgelinta. sidoo kale wuxuu iiga waramay sida ay u gaarsiiyaan bulshada ka soo codsata dhiig degdeg ah. runtii aad u mahadsantahay adiga iyo bahda TV-ga maanta la soo booqdeen. xaruntan waxaas aaseen dhalinyaro dhaqaatiir ah ka baxay jaamacadaha ku yaala wadanka. ayaga hal-abuurka fikirkaas ka lahaa, ayaga ka tashtay, ayagana arkay baahida in loo baahan yahay markaas ay ka fadhiisteen ay asaaseen xaruntan Banaadir. wallaahi waa saa sheegtay waaye waxa baxay waa qarshaad hoosh wax lagu qabto waa qarshaad kira socoto koronto socoto dhammaan runtii qarshaadkaas waxa bixiyaan qayb ka mid ah dhalinyarada fikirkaas ka lahaa. ayaga bishii contribution iska qaada kiradii korontada ku xaliya. agabka kale soo haray bacda dhiigga ay baaritaankeeda iyo waxeedana waxaan inoo soo rowday inaan bulshada ayaga ka qaadno si ayaga loogu adeego. annagana ay noo noqoto xooggeena iyo kiradaasi waxaa sadaqa inoo tahay. laakiin xoogga hadda qarashaad ka baxo oo bacaha dhiigga iyo baaritaanadooda lagu sameeyo bulshada ayaga iska bixiyaan. laba qalqaadayna qofka markuu donor yahay oo dhiig shubayo isaga sadaqadiisii rabo inuu sadaqaysto xarunta markuu yimaado wuxuu helayaa baaritaan lacag la'aan ah
sidoo kale cabitaankiisu helaya hadduusan haysan baawraac qofkaas ah waxaan diyaar u nahay inaan baawraaciisa aan bixino asagana sadaqa u tahay anagana sadaqa inoo tahay qofkaas wax lacag lagama rabo qofka ku dhiig deeqayo marka laakiin qofka bulshada kamid ah oo baahida dhiig soo hayso soo dalbaday oo dhiigaas u baahan waxa jira service laga qaado servicekaasna waxaan uga qaybinaa ilaa 2 qaybood kuwa meniska kale waxaan ka qaadnaa waa $10 kuwa blaska ahna inta badan oo O blaska ka mid yihiin waxaan ka qaadnaa waa $5 lacagaas la qaadayo ma ahan lacag oo anaga aan qaadanayno waa lacag lagu manage gareynayo agabka baahida markaas jirto nooca maxay ahaydey bacda dhiig baxayo baartaanis baxayo aan ku xalino ma haysano hay'ad oo taakulayso oo naga saacida agabkaas ma haysano dawlad oo naga saacida maxay ahaydey agabkaas baahida lagu cover gareeyo dantan waxay noo qasbaysaa in bulshada ayaga aan u shaqeynayno inay iska bixiyaan waxyaabaha facility yar yar ah annagana aan xooggeeni aqoonteeni cilmigeena sadaqa inoo tahay iyo kelidina bixino والله دhanka dawladda markii loo fiiriyo qolan hadda nala soo xiriirtay oo dhahayso ama gobolka ha ahaado ama wasaaradda caafimaadka ha ahaado oo nala soo xiriiray oo naga saaciday ama qarash qayb ka mid ah intuu ma jiraan qarashaadka hadda waxaa cover gareeya waa bulshadu iska bixisato maxay ahayd servicekaas ah iyo annaga contribution iska qaadno oo ku cover gareeyno kiradii iyo baahida markaas jirta waxaa soo raaco dhalinyaro oo qoyahana ah oo shaqeeya oo waxaa jira liiso donation ah oo qofka bishii oo kale $1 sadaqaysan kara $2 intuu awoodo $5 dhalinyarada marka halkaan imaadaan oo sheegno ayaga is diiwaan geliya bil walbana waxaan u dirnaa fariin ah in uu la gaaray waqtigii uu sadaqaysan lahaa bangiga dhiig uu sadaqaysan lahaa wuxuu awoodo hadduu $1 bishii dhan ka go'do wax bay u taraysaa bulshadana anagana sidoo kale wax bay noo taraysaa waxyaabo baahiya markaas aan ku cover gareynaa dhalinyarada halkaas jiro ilaa ay lambar oo xogaa roon oo sadaqaystaan $1 $2 $5 $10 ay u furan yihiin laakiin wax dhanka dawladda ah ama contribution ama hay'adeed ma jiro runtii ra'yigaas waxaan ku leeyahay dhalinyaro badan oo ka qalan jabiyay jaamacadaha waxaan ka soo bilaabnay Somali Medical Student Association oo markaas ah meel ay ku kulmaan bahda caafimaadka dhalinyarada oo arday ayaga ah markaasaan fikirkeena ugu dhashtay aan ka soo asaasnay halkaas bixinta dhiigaaga ayaa ah sadaqo sidoo kale waxaa la sheegaa in laga helo caafimaad